waxqabadka iyo dhaliisha. magacaygu waa cali sheekh cismaan, waxaan ka mid ahay odayaasha degan waddankan Sweden, khaasatan magaalada madaxdeeda Stockholm, gurba joogta ah. muddo dheerna waddanka ka soo maqnaay. waxaan runta marka hore halkan ka salaamaya dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. dhibaatada jirtana waxaan ugu duceeyaa mar walba in Ilaahay ka qaado. dabcan way jirtaa nooc nuse way jirtaa su'aasha ay weydiiday haddii aan u soo noqdo oo ahayd arrimihii dowladnimada iyo Soomaaliya iyo waddanka deganaanshihiisa. waxaan ogaa dowladda hadda jirta dhaliilo badan ayay leedahay. dhaliilahaas oo ah waddanka isagoo federaal oo maamul goboleedyadii iyo wixii qaarna tiirarkii taagan yihiin qaarna ay dhammaystiran yihiin ayay yimaadeen. waxaa la rabay inay halkaa kasii amba qaadaan oo ay hawshii wax badan ay kasii wadaan. waxaan ognaha marka dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ama kuwa gudaha jooga waxay ku rajo weynaayeen in maamulkii ka horreeyey dowladdii ka horreeyay dowlad ka fiican oo ka sahna qaab badan inay timaado. nasiib darro waxaad moodaa in ay kasii daciifnimo dowladdii laga dareemayo, iska qabsi badan oo jiro. shacbiga Soomaaliyeed korkoodii buuq iyo dagaal iyo madaxdii qaranka iyo gobollada is haystaan. taas waxaan saarayaa dhaliisha dowladda dhexe. waxaan u saarayaa waxa weeye baarlamaankii ood ogtihiin Jawaari way isqabsadeen, maamul goboleedyadii kale way isqabsadeen. marka waxaa su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay war maxaa dowladdan hadduu hal maamul goboleed ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd. laakiin maxay tahay maamul goboleedyadii oo dhan shantii maamul goboleed ay u yimaadeen isku qabsadeen. sidaa awgeed waxaan leeyahay dowladda tan hadda joogtan waxaan dooranaa annagu shacbiga Soomaaliyeed dadka ka wakiilka waxay u dooreen madaxweynaha hadda Soomaaliya fadhiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay noo dooreen. madaxweynihii ay noo dooreen sidee wax u qabtay? su-aasha la isweydiinaya taas wey. shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qurbaha waxqabadkeeda ma sheegi kartaa dowladda? wallaahi waxqabadka hadda waxaaba ka horeeyay horta marka hore heshiis dowladnimadii in la helo, haykalkii dowladnimada oo la isfaham fiican oo hoggaan fiican oo jiro. sidaa awgeed waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed aday ku doorteen, ma aysan dooran xildhibaanadii ku doortay dadka Soomaaliya wakiilka ka ahaa in arrintan dib loo fiiriyo. waxaan ognahay maalin walba idaacadaha waxaa laga maqlayaa kooramkii lama buuxin oo xildhibaanadii ma buuxin. xildhibaanadu dadkii waxay u arkaan qurba joogtii marka rajo xumo weyn ayaa sii gashay. aad u mahadsantahay cali. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa la yiraahdaa magacayga Abuukar Goodax Barre, waxaan deganahay dalka Sweden, magaalada Stockholm. Birjab saaxiib adiga iyo tiimkaaga VOA ku soo dhawaada dalka Sweden. soo dhaweyn kadib saaxiib waxaan rabaa in aan fursadan maanta aad siisay aan uga faa'iideysto in aan halkan tacsi ugu diro dadkii ku geeriyooday fatahaadihii ka dhacay dalka Soomaaliya, khaasatan magaalada Beledweyne, iyo dadkii khasaaraha uu ka soo gaaray sida Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose. wax aad looga xumaado ayay ahayd in dad gaaray 500,000 ay hanti iyo maal iyo guryahoodii ay ku waayaan. balse waxaan wax aad looga farxan noqotay sida ay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ugu gurmadeen, iyo kaalinkii libaaxa lahaa ay ka qaadatay dowladda dhexe ama geesinimo aan dhaho, si dadka walaalahooda ay fatahadahaasi aafeeyeen loogu gurmado. waana ku mahadsan yihiin shacab iyo dowlad intaba. intaas kadib waxaan rabnaa in aan ilaahay uga barano in ilaahay dhibkooda dheef uga dhigo, dhaqsana ay guryahoodii iyo hantidoodii haddii abadi ka leeyahay ilaahay dib ugu soo celiyo. intaas kadib waxaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo su-aashaadii. wallaahi aniga maanta ka hor ima gelin dalkaaga dib ugu noqo, qaybna ka noqo horumarka iyo dib u dhiska xawliga ku socda ee bilowday.
muddadii ay hayeen maamulkan maanta ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay horumar iyo guulo la taaban karo ayay gaareen. waxaana fiican sideedaba markii maamul jiraa uu shaqo fiican qabto in la yiraahdo waa mahadsantihiin, shaqo fiicana qabateen, si mid kasii fiican ay u qabtaan. shaqooyinka aan leeyahay waad ku ammaani kartaa waxaa kamid ah la dagaalanka musuq maasuqa oo arin muhiim ah oo ah mid ka ugu weyn dowladaha soo koraya ama Afrika dhibaatada weyn ku haya. waxaa kaloo kamid ah shaqooyinka ay qabteen kaabihii dhaqaalaha oo moodo in ay dib u dhis iyo horumar ay ku sameeyaan. waxaa kaloo leeyahay in siyaasadii dibadda ay aada uga wanaagsan yihiin dowladihii hore. ma dhicina maanta ka hor in ka badan 50 dowladood isugu yimaadaan magaalada muqdisho ay shir ku qabsadaan. waan ognahay shirarkii ka horeeyay waxaa lagu qaban jiray Belgium iyo London. kii ugu dambeeyey maasha allah wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho. waxaana mahadaas leh dowladda maanta jirto. waxaad moodaa in xawli ku socdo in ay raadinayaan in Soomaaliya deymihii ay hore u galeen in laga cafiyo. waa arin wax lagu faana ah. waxaan aragnay in shalay ama daraad waxay ma garanayo in gudoomiye ku-xigeenkii bangiga adduunka oo booqasho ku yimid Soomaaliya. waxaad moodaa in dadku ay ku dhiiranayaan tegitaanka Soomaalida in la tago dalka Soomaaliya. waxa aan kale oo aan marnaba hilmaameynin sharaf weyn aniga xaggayga ay dowladdan ay kaga mutaysatay sida ay u xakameeyeen dowladihii deriska ah oo in badan ku dhex milmay siyaasadda Soomaaliya. aad baa u mahadsantihiin. Soomaaliya faa'iido iyo khasaaraba iyadaa iska leh dalkeeda taladeeda. waadna ku mahadsantihiin horumarka aad dhankaas ka gaarteen. waxaa kale oo aan rabaa inaan waxoogaa tala ah aan ka soo jeedisto baryahan dambe khilaafaadka maamulka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dharay farabatay fuud xararay. marka loo dhaafo hal qolo bahashan waa meerto markiina idin soo gaari doontaa. maamulo jiraad tihiin dastuuri ah waan ogolnahay, balse dowladda dhexe waxay xaq u leedahay isku day in aad bal marar keliya sii daysaan. Soomaaliya ha noolaato, cadowgeeda ha jabo. guul meel kastoy joogtaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.